الرحمن الرحيم والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله sida ay sheegeen odayaashu loogu horeeyay afayeenka ismada SSC ee dhaqanka iyo Garaad Cabdullaahi Garaad Islaamanba maanta waxaan sugu nimid baaq nabadgelyo oo u soo jeedinayno kuna daminayno shaqaqada iyo dhibaatada ka taagan ama ka soo aloosantay magaalada Ceerigaabo. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dadkaas iyo colaadaas dhex taagan uu naga damiyo sida odayaashu ay sheegeen ay uskumay safarkii Muuse Biixi maanta xaqaayad oo xaqiiq ah weeye colaad dhex taala Garxaajis iyo Harti inaysan jirin dagaalkana ma dagaalkeenii laakiinse waa dagaal layna gelinayo kana dambayso Muuse Biixi dadkuna inay taa ku baraarugsanaadaan baa la doonayaa waa ka mahadinaynaa intii hore baaqyada u soo saartay dhanka Garxaajis iyo xaggaas dhankaygana waxaa ka soo jawaabay oo iyana baaqyadaas saas oo kale u soo diray odayaasha beelaha Harti hadday joogaan Boosaaso iyo hadday joogaan Garoowe iyo hadduu ismada dhaqanka kale ee Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaamba uu ka mid ahaa oo runtii ay loogu ekayd baaq ahaan in lagu socdo laakiinse taayid maanta waa taakiidis runtii waa arkay odayga ka mid odayaasha dhanka beesha Habar Yunis sida ninka la dhaho ii sheegay Suldaan Cismaan Madar oo runtii anagu aan ku ogeyn talada Habar Yunis taladaasna aan ku ogeyn inay ka goodo kuna dambayso Suldaan Maxamed Suldaan Xirsi Qani hadalkiisana waa dareenay inuu maanta isaga laftigiisu ka mid yahay raga ku xidhan Muuse Biixi ee colaadana meesha ka abaabulaya mid hore loogu yaqaanay ahayd geestayadana aan u tirinayno inuu ka dambeeyay ama mas'uulba ka ahaa shaqaqadii iyo dhibtii ka dhacday Kalshaale marka tayisa la qaadan mayno kulana tartan mayno ilaahay meel kale ha ka siiyo dadkayga deegaanadayda ama Harti ha noqdaan ama Garxaajis ha noqdaan waxaan ku baaqaynaa nabad inay ku wada noolaadaan nabad ku wada joogaan inta Ceerigaabana iyo intoodaas inay nabadooda ilaashadaan cid meel kale uga soo dakaaminayso colaadna aysan u dhaga nuglaan iskana fahmaan maanta xaajada tan dhex taala maanta laga dhex abuuray inaysan ahayn mid iyaga dhexdooda ka timid ee la soo dhex maray insha Allah bidna karin waan idinku soo ducaynaynaa inuu ilaahay nabad idin dhex dhigo beerkiina burca isku mariyo annaguna saasaan idinku ognahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.